cabdiwahaab maax oo ka mid ah ganacsatada reer awdal ayaa habeenkii xalay munaasabad casho sharaf iyo abaalmarin iskugu jirta ku maamusay xulka gobolka awdal. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, ciyaartooyada gobolka awdal iyo marti sharaf kale. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay cabdiwahaab maax oo ahaa mas'uulka fidiyay martiqaadka, waana kan hadaladiisii. sharaf ay caawiyo tahay in habeenkayga ku soo beegmay habeenkii gabagabadii aynu kala baxaynay idinkuna aad oo baxayseen halka ka soo boqosheen oo gobolkii ah annaguna aanu idin sii sagootinayno gacmaha idin sii haadaynay. waxaan ku faraxsanahay inaad ciyaar wanaagsan ciyaarteen. waxaan ku faraxsanahay Soomaaliland oo idinka marakacday ciyaarihi aad ciyaarteen inaad soo dhigteen oo keenteen ciyaar wanaagsan oo sharaf leh oo akhlaaq iyo dhaqan ku dheehan yahay. ujeedaduna ma haysan xaraba sheegnay inaad badisaan waynu wada doonanay in la badiyo oo shalay markii ciyaartu deelay naga badiyay qof kasta meel buu ku dhaco xalay lama wada hadlayno markii wada joognay xalay Manga Garden waa la isoo wareegay laakiin waxaad moodayna ka duwanta waxoogaa recovery la sameeyo dhimaanta ciyaar kale naga dambeysay laakiin muhiimaddu waxay ahayd inaynu ciyaarno oo aynu badino laakiin in la naga badiyano aynu ku talagalnay in la naga badiyaa ma aha mataqaanaa inaynu guul dareysano mararka qaar guul darada nafteeda yaa guula laakiin waxaan ku faraxsanahay in la idinka marakacay inaad haydeen ciyaaryahano akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo intaba soo bandhigay. sharaf bay annagana noo tahay waana sharafteen. waan ku khasbannahay inaanu idin sharafno oo nu idin waarino oo nu idin la dardaarano. dardaarankayga ugu badani waxa weeye inaad wanaajisaan akhlaaqdiina iyo dhaqankiina oo sida aad ugu dadaalaysaan ciyaarta ee waqtiga u siinaysaan inaad sidoo kale u siisaan ruuxdiina iyo diintiina inaad korisaan oo noqotaan dad dhinaca kale Ilaahay ku xidhan oo ilaabin ku xidhnaashiin Ilaahay ku xidhnaayeen. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka awdal. kulley wax badan oo dhammaay waan idin soo dhaweynaynaa waan idin sii sabootaynaa waxaan idinku dardaarnaa insha Allah taala waqtiyada dambe in dadaalkaad si la bilaabtaan meel fiican baad soo gaadheen kubadduna waxa weeye guul iyo guul darro labadaba way leedahay idigu meel fiican baad soo gaadheen waad guulaysateen baan idin leenahay insha Allah. waxaan u mahadnaqaynaa cabdiwahaab maax maxamuud oo isugu keenay xafladan casho sharafka ee uu ku maamuusayo dhalinyarada ciyaartooyga gobolka awdal basketkii iyo kubaddii cagta. intaa dabadeed kalmadaan la soo kacay waa hambalyo inaad diin hambalyayno. guuldarradu ceeb maaha laakiin waxaa ceeba anshaxumada iyo inaad garoonka ceeb kala tagto. aad baan idinku hambalyeynayna. waxaan aad ugu faraxsannahay anshaxa iyo ciyaar wanaagga aad la timaadeen garoonka eed kala soo baxdeen. run ahaantii madashani waxa ay daaran tahay munaasabad casho sharafa oo inoogu talagalay injineer maax oo ka tirsan shirkadda Telesom. run ahaantii injineerka waxaan leenahay aad iyo aad baan kaaga guddoonnay aniga oo ku hadlaya afkii isboortiga gobolka awdal qayb kasta oo ahaatay basketball, football iyo orod oo ahaatay. runtii waxaa kaaga mahad celinaya munaasabadda xafladan aad ku dhiirigelinayso dhalinyartii isboortiga ee gobolka awdal iyagoo halkan ay tartan ku jireen. tartankaasna kulley cid unba nasiibka helay lama wada helayo. waxaan aad iyo aad horta u salaamayaa marka ugu horeysaa dhammaan maanta dhalinyaradan ka socota gobolka awdal ee guusha ka soo hoysay. anigu waxaan arkaa guul. mar labaad waxaan aad iyo aad u mahad celinayaa cabdiwahaab maax maxamuud oo soo agaasimay casho sharaf taliyada. adduunyadu waa qaalib iyo maqluub. waxa weeyaan koobka marka hore idinkaa keenay 4 sano ka hor idinkaa guul gaaray. maanta laftigeeduna waxaan aaminsanahay inaad guul gaadheen. haddii ay timaadana sideedu wax la yiraahdaa kubaddu waxa weeyaan waa cadaan iyo madow. marna waa guulaysanaysaa marna ma guulaysanaysid. marka alxamdulillahi rabbil caalamiin maanta waxay idinka badiyay gobol Marlajeex la yiraahdo waa gobol weyn
haddii intii kale oo dhan aad idinku laftigiinu halkaas soo gaadheen iyada laftigeeduna waa guul waxaan idiin rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadka dambe inaad qaadaan koobka sidii horeba aad u qaadi jirteen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad salaamaya cabdulwahaab maxamuud waxaan leeyahay jeerjey gobolka awdal waxaa soo bandhigtay ciyaar aad iyo aad u wanaagsan insha allah sanadkii u dambeeyey waan qaadnay iminkana ilaahay baa sida kartay laakiinse hadday baaska tahay hadday orda tahay iyo hadday kubadda cagta tahayba markaa xaafadeeniisa tagno dib baan u sawireynaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay Marwe Amaal Xaaji Miisaan oo ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha haweenka waxaan halkan mahadnaq uga dirayaa injineer Cabdiwahaab Maxamuud oo caawa casho sharaftan u fidiyey xulka gobolka Awdal ciyaartooyda gobolka Awdal kuwa kolayga iyo kuwa cagta iyo orodyahanadaba waxaan leeyahay Cabdiwahaab jasaakallahu khayr waxaad ogtihiin inaan ballan qaadnay maalintii ugu horeysay aad ciyaarta bilaabaysaan ilaa iyo inta ay xaaladiinu ka dhammaanayso ama aad guulaysanaysaan ama laydinka guulaysanayo inaan garab taagnaan ballantii baan sidii u haynaa aniga iyo taageerayaal fara badan oo halkan fadhiya waxaan leenahay ilaahay nabad iyo caano hoygii aad ka timaadeen ha idinku geeyo waalidkiinii idin dhalana dembigoodii allaha dhaafa idinkoo faraxsan idinkuna u taga nabad qabna ilaahay ha idinku nabadgeeyo waxaan leeyahay waa guulaysateen ama idinkuba guulaysan lahaa ama waa idinka guulaysan lahaa ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey xulka gobolka Awdal oo ay ku mutaysteen ciyaar wanaagii ay ka muujiyeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium. Fiima Yaasiin Muuse, Home Cable TV, Hargeysa.